ku jirnay soo dhaweyntii waxaynu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa culimadeena sharafta leh ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa dambi dhaaf aad iyo cizi dunyo tacabka iyo hawsha ay ugu jiraan inay ummadda wanaagga ugu yeedhaan maalin iyo habeen waxaan ku soo dhaweynayaa muxaadaradii iyo kelmaddii sheekh faadil sheekh bashiir axmed salaad falyatafadal mashkuuran ma'juuran. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت أسكدي بالله سبحانه وتعالى بأقوم هذا نقينا هذا لكو بكرين سيد النعمين كيسان لكو بكرين وحان كلو سيدو كله ومهدنقيا علمada iyo walaalaha qaban qaabiyo kulankan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo kuwa ka faa'iideysta kulanka asaga ah oo miisaankooda xasanaadka maalinta qiyaame Allah nagu cusleeyo intaas kadib walaalayaal runtii mawduuca loo qabtay shirka asaga ah waa mawduuc muhiim ah maxaa yeelay masiirka ummad dhan ama ummado badan oo muslimiin ah ayaa ku xiran gaar ahaan ummadana Soomaaliyeed waxa la oran karaa mawduuc muhiim u ah dhalatay mawduuca asaga ah diintooda iyo adduunkooda uu saameeyay ayaa looga hadlayaa meeshan marka in mawduuca insha Allah taala ay laga faa'iideysto Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii cadaalad uga hadla sawaabtana Allahna waafajiyo dhamaanteen. runtii waxa bisayl ah oo lagu farxaa in mawaadiicdan oo kale laga niqaasho oo ummadu maaragtay ay gaarto heer ay ka hadli karaan masaa'ishan oo kale laakiin waxa muhiim ah wax kasto laga hadlayo in looga hadlo laba shardi waxa weeyaan in cilmi loo leeyahay شرطنا وحويه إن عدالة اللي وصل إلى هذاك العلم والعدالة أما العلم والعدل وحكستور لقى الله هيو علم جودة ولو بهي هي عدالة إنه هذلنا ولو بهي أنا موضوع أيو وأسكتوا بيا إن شاء الله تعالى هذه وصل هذا الكمار إلى سيتجن إلى التجين ومارة وصل أفافاهن وحنك الله يا أسبابته كنتي waxa loo yaqaano qabyaaladda waxaana filayaa isla fahamsanahay waxa laga qeexayo waxa la qeexayo oo laga eed sheeganayo oo dacwada loo haysto waa qabyaaladda weey marka qabyaaladda oo macnaheedu yahay in qabiilka loo adeegsado si khaldan oo dad lagu dulmiyo ama manfaca maarata aan lahayn lagu soo jiito ama laga dhigo miisaan dadka lagu kala sooco ama dadka lagu kala fadilo qabyaalada noocaas ah
asbaabaha keenay maxay yihiin waxaan kaloo insha Allah taala aan dul mari doonaa muuqaalada la oran karo muuqaalkaas iyo waxaas ama hadalkaas ama ficilkaasi qabyaalad weeye baan ku xujin doonaa insha Allah taala ayadana waxaan dul mari doonaa xoogaa kooban oo saamaynta ama waxyaalaha saamaynta ah oo qabyaalada noocaasihi ay ka saameynayso bulshada iyo qofkaba ugu dambeyntii xoogaa yarahoo daawada ana waan sheegi doonaa insha Allah taala midda koowaad oo asbaabta ah waxaa la isweydiin karaa maxaa looga hadlayaa asbaabta keentay qabyaaladda jawaabtu waxaa weeye wax kastoo la doonayo in la daaweeyo waa in la ogaadaa meesha ka yimaadeen saa la socotaan qabyaaladdu waa cudurkuna haddii aan asbaabtiisa la ogaanin daawadiisa lama helo marka asbaabta keentay qabyaaladda in la qeexo oo la ogaado waxay shardi u tahay ama dariiq u tahay na gaarsiinaya in daawada la garto asbaabta ayada ah waxaan u kala qaybaysiya soo socota asbaab u noqonaysa ama loo celin karo qofka fardiga ama qofka wuxuu noqonayaa bulshada ama nolosha bulshadeed ama dhanka ijtimaaciga u noqonaya wuxuu noqonayaa xagga maamulka ama dowladnimada wax la xiriira iyo wuxuu noqonayaa awoodaha shisheeye ama dowladaha kale ama dadka aan Soomaalida ahayn oo ama dowlado dhow ah ama dowlado dheer ah midda ah asbaabta u noqonaysa fardiga oo qabyaaladda keeni karta maxay tahay saala socotaan bani aadamku waa makhluuq ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ba abuuray ilaahay wuxuu ku abuuray sifooyin ama tilmaamo gaar ah ayuu insaankaas leeyahay tilmaamahaas oo insaanka daruuri u ah jiritaankiisa insaanku inuu wax tamciyo ama tamac uu galo inuu wax raadiyo inuu maaragtay xoolaha jecel yahay inuu mansib raadiyo waxa noocaas oo kala insaanka waa lagu abuuray waana waxyaalo sabab u ah ama daruuri u ah in insaanku uu sii jiro marka insaanku inuu wax tabco uu xoolo yeesho oo nolosha adduunka uu camiro waxa weeye waxay ka socotaa waxa asaga ku jira oo ilaahay ku abuuray ayaa keenaya marka wax insaanka lagu abuuray oo xoolo jacayl naf jacayl qaraabo jacayl waxa noocaas oo kala ah ayaa ku abuuray insaanka waana wax maaragtay loo baahan yahay oo intooda saxda ah hadii laga isticmaalo nolosha maaragtay iska maarmi weeye insaanku inuu wax cuno waa lagu abuuray kama uu maarmo rag iyo dumarku inay maxaanku raas guursadaan oo la tarmo waa lagu abuuray laga maarmo marka dhammaan waxa noocaas oo kala oo tilmaamahaas ah oo nolosha u baahan tahay haddii si khaldan loo isticmaalo ama xadkooda la dhaafiyo dhib baa ka imaanaya inuu insaanku wax cuno uu u baahan yahay laakiin hadduu wax kasta cuno waa ku dhimanaya marka dambe ama caafimaadkiisa dhimanaya uu ku halaabaya wuxuusan lahayn buu qaadanaya qofku inuu xoolo jeclaado oo xoolaha tabco uu shaqaysto waa lagu abuuray waana fiican tahay laakiin inuu xadgudbo ma fiicna marka insaanku tilmaamaha uu leeyahay oo ay ka mid tahay inuu naftiisa jecel yahay iyo cid kastoo asaga xigta inuu jecel yahay ayaa waxa ka farcamahaya haddii si xun loo isticmaalo ama xadkeeda la dhaafiyo waxa loo yaqaan qabyaaladda ayaa ka imaanaysa midda kale waxa weeye insaanku waa waxa loo yaqaan waa bulshay insaanku bulshay macnaheedu waxa weeyaan inuu dad uu maartay la noolaado insaanku kama uu maarmo uu bulsho ku dhex jiro bulshada noocaas noloshiisa ku xiran asaga u baahan ayaga u baahan marka insaanku maadaama uu bulsho u baahan yahay inuu maaragtay la noolaado la tacaawuno iskaashadaano istifaacaano dantooda maxaan ka wada shaqeeyaan marka midda ayada ahayd haddii la khaldo insaanka haddii qabyaaladu ku dhacaya bulshaduna waa labo midna waa bulsho samaysan oo meel ka aadid ma laha adaa u baahan meel ka aadid ma laha aduu ma samaynin bulshana adaa samaysta ama duruufta kala ku samaysa marka qabiilku bulsho iska samaysan weeye
waa ku soo biiraysaa waa ka dhalanaysaa meelaa ka aadid ma laha marka bulshada noocaas oo samaysan dhaqankeedii iyo afkaarteedii inaad gashidna halkaasay ka imaanaysaa marka insaanku bulshay ah ama sida carabtu ay tiraaho al-insaanu madaniyun bitabcihi insaanku dabeeca ahaan ayuuba uu dadka inuu noolaado ayuu ku abuuran yahay marka baahida ah inuu dad la nool yahay ayaa waxay keenaysay dadkii inuu dadka isbartaan oo wada dhaqmaan oo maaragtay istifaacaan oo isgaashaan buursadaan baa ka imaanaysa meesha marka midda ayada ah hadday khaldanto oo meel xun loo isticmaalo markaasi qabyaaladu ay ka imaanaysaa asbaabta u noqonaysa xagga arrimaha bulshada saala socotaan yani insaanku sida aan sheegay waxa weeyaan jiritaan ayuu ku biirahayaa bani aadam is aruursaday buu la shaqaynayaa ama ku biirayaa ama ka mid noqonayaa marka is aruursiga la sameeyo waa laba nooc ama waa saddex la odhan karaa mid waxaa weeyaan is aruursiga xagga dhalashada ah waa kii qabiilka is aruursi xagga mabda'a iyo diinta ah oo dadka intii isku diina oo kale mesela ummad baa la odhanayaa sida muslimiinta oo kale iyo maaragtay is aruursi xagga maamulka ah dad meel degan oo dowlad samaysta ayaguna waa mid marka dad qabiil ah dad diin isku keentay oo ummad muslimiin ama maaragtay ummadka diin kale haysata ah ama dad dowlad isku keentay markaa fiirisid soomaalida jiritaanka koobaad oo soomaalidu isku aruursadeen waa jiritaanka qabiilka ahaa asaga ayay ka samaysmeen isku joogooda iyo isku imaatinkooda asagaasu ka bilowday labada kale marka oo midka diinta ah iyo midka dowladnimada ahi maaragtay inay dadka isku hayaan ama dadka ii sheeg awood badan ay ka helaan saas uma dhicinin oo dadkii aan xaqi qabiilka inuu yahay wax dadka isku haya oo sababtiisa la isku kaashado sababtiisa maxaan ku rahaa dib badan loo maro marka hal oran karaa saddexda nooc oo maaragtay isgaashaan bursiga ku salaysan qabiilka ku salaysan ama dadka bulshada oo qabiilka ah iyo isgaashaan bursiga ku salaysan diinta iyo maaragtay dhankaas iyo midka dadka dawladdu ay isku keento isku hayso waxa moodaa Soomaalida midka qabiilka ayaa ugu xoog badnaa asaga saameyntiisa iyo shaqayntii intuu shaqeeyay ama inta asaga maxaan kula isticmaalay ayaa ka badan inta labada kale la isticmaalay oo inta islaamnimo ay noo shaqaysay ama la isku kaashaday waxa ka badan inta qabiilku uu shaqaynayay taariikh ahaan iyo maaragtay iyo saameyn ahaanba sidoo kale dawladda taas oo kale weey marka anaga dhaqankeena iyo taariikhdeena waxa aad u shaqeeyay oo la oran karo maaragtay ishaysiga ummadeena asaaska ahaa iyo bilowgaba miyi iyo magaalaba masalada qabiilka ahayd labada kale oo ah xagga diinta iyo xagga dawladdu si fiican inay hana qaadaan ama tadbiiqi loo baahna ay helaan ama sidii loo baahna loo hirgeliyo si fiican looma helin baa la oran karaa marka taariikhda Soomaalidu waxa weeyaan waxa shaqeynaya qabiilkaas ba shaqeynayay wuxuuna ahaa midka kaliya ah oo qofka Soomaaliga ahi uu ku xallisto dhibaatooyinkiisa ama uu ku wajaho duruufaha adduunka ama nolosha asagaas buu ahaa wixii uu ka baqayo asaga ayuu maartay iskaga difaaci jiray wixii ka maqan asagoo ku soo heli jiray marka wasiirada la isticmaalo oo qofka Soomaaliga noloshiisa iyo taariikhdiisa iyo xusuustiisa ku qoran midaas ayay ahayd sababaha u noqonaya dhanka maamulka ama dawlad ahaanta sala socotaan fashil weyn way fashilantaa la oran kara ama Soomaalidu dawladnimada inay fahmaan ama ku dhaqmaan ama dawladnimadu ay gasho booskii qabiilka ay gasho oo qofkii Soomaaliga ah dawladnimada uu ku helo wuxuu rabay ama xaqii uu lahaa uu ku helo dibkan uu kaga badbaado arrinkaasi waxa la oran karaa si fiican uma hana qaadin ama waxa la oran karaa wuu fashilmay oo dawladnimadeena Soomaaliyeed oo mar hore la helay ama xorriyadda la qaatay kadib inay maaragtay booskii qabiilka noo gasho oo qofka Soomaaliga uu ka xoroobo inuu qabiil
وماركتي وهنقل تاجه أما قبيل عسكده أما قبيل وحكور هذيو أما قبيل اسكود دفاعه كما يسن حرينين مركا أيقو الدولة اللي هي أي ولي وحى مارت الجباض اللي قد يجن هي أما الهوس جوجي أما الاستعمال هي ما يعني قبيلك أما قبيلة دبل استعمال هي مركا فشل كي يكون رعي نظام كدولة ذات وكجابيه إنه باص كي قبيلك قالوا واسكو هينتي ومضى إنه مارت دولة اسكو هيصه دفاعي دي مارت وحي لو باهنان الدولة اللي جوه له أرنك أسمع دحين مركا سيستم دولة ذات وباص كي قبيلك قاله لما هلين وإنه مهر قليني بلا أورن كرا مركي نظامك فشل منه قبيلكم مركز تأصجع أيا مرتلو أهانيا محايا تاريخ ذي أصجع بامارة حلقون مالي ترى أصجع أيا مرتلو أها مركز دوايه هروح على سكوها يستي باد يبي يهانشرين لبعت بدل متشرين أما عيل بالسكوها يستا أما بيا السكوها يستا أما بركض بالسكوها يستا يروح الله متكاه لكن مركي سياسة أي شيء أيو جيت كحوجابي مركز تا قبيلك وحو ماركتي حوجة يلانا يا مشكلوين كمركز ياله وأصلا حلك وياهي أنت اللي يجيهن أودو ذا أيو يلانا يا شرع مركي قبيلك وحلينها يبي يباد وافض ضاع لكن مركي سياسة دي دول نمدو أي قبيل أباهتي أيو قبيلك عرك مارتي عركو قليبا عركو اسكو شريرة وهو نقضي هذا عرس بو نقضي حتى أنا فهم كرينو سلو حالي اللي قرين كريبو نقضي ما عرفتي لا يابله مركي مشكلوينكو أي بطان وينادان قبيل كان إنه حلي لو باهن يهي أرنكاسي يعني سبب وين بنقونا يا قبيل كحوتشين هي سببها نقونا يا حاجة وحي عن صومالي أهين ولا أورانكو رفلجرينتا وحي عن صومالي أهين ودي بدها كإيمانا يا لا قصوا بالله باستعماركي ولا أورانكو قبيلكم استعماري حاجة ماملك وقف إيديستي وضدك الصومالي ذا إنه قبيل أهان مامله وقفك وربه حاجة قبيلك اللي يسوق جلها marka system uu dadka kula xariiro ayuu qabiilku u ahaa isticmaalka wuxuu kale u isticmaalay qoqobo ama dadka uu kala geeyo ayuu isticmaalay oo dadka xataa maarta magaca qabiilka inuu kor u soo kaco ayuu isticmaali jiray isagoo doonaya dhanna waa ka faa'iideysanaya jiritaankaas iyo dadkaas si maarta isku aadan ama dadka noocaas oo si isku xirxiran waa ka faa'iideysanaya markuu rabana dadka ma aragtay inuu iska hor keenana waa isticmaali jiray tan kale waxa weeye maanta dawladaha tirada badan oo wadankeena danaha kale ama hanoo dhawaadaan ama hanaga dheeraadaan ayaga laftoodu waxa weeyaan qabiilkaas inay u isticmaalaan si ay danahooda ku gaaraan oo maxaan ku raahaa amada Soomaaliyeed cidda ay rabaan inay danka gaaraan ama waxa ay rabaan inay fashiliyaan dad baa loo soo maraya qabiil baa loo soo maraya qabiil baa la taageeraya mid kale ayaa maaragtay laga taageeraya marka inuu noqdo qabiilku wasiilo dawladaha danaha kale Soomaalida ay soo maraan adeegsadaan ayaa muuqata waxa kaloo ka mid ah dawladaha dibadaha jira ama beesha caalamku in qaarkood xataa ay ayagoo maaragtay laga yaabo inaysan hadda waxaleeya islahayn xalinta mushkiladan inay ku wareeraan oo marka laftoodu si khaldan ay u xaliyaan oo mushkiladii ay sii ziyaadiyaan waxa kamid ah meeshan yani mushkilada ama shayga loo yaqaan federaalka oo kale federalismka oo loo keenay in qabiilka lagu xaliyo oo kale maadaama dadka isna maartay dadka xoogaa iska hor yimaadeen dadka heshiin waayeen si dadka xoogaa bal maartay loo kala maamulo hal loo sameeyo federalism asaga laftiisii marka ayaa dhibsi abuuraya marka beesha caalamka laftooda marka qaarkood waxay leeyihiin ku xaliya ay leeyihiin ayaa si khaldan inta loo isticmaalo ama si khaldan loo adeegsado dhibaatada lagu xalin lahaa ayuu sii ziyaadinaya ayana way timaadaa marka inahaas asbaabahaas xagga fardiga xagga bulshada lafteeda xagga nidaamka dawladeed iyo xagga beesha caalamka taasiirka ay ku leeyihiin ama maaragtay asbaabta keenta qabiilka ay ka mid yihiin ama xoojiya waa shay iska macruuf weeyaan haddaan u imaado xagga waxa loo yaqaan muuqaalada qabyaalada ah waa in la kala saaro wixii qabyaalada
iyo waxaan qabyaalada ahayn waxaa lagu yaqaanaa ama ka mida muuqaalada qabyaaladda waxaa loo yaqaano almunaasaratu cala albaatil dadka oo iskugu hiiliya wax kasta ama hiilo indhala-aan ah hiilo indhala oo sidii carabtii hore maaragtay ay odhan jireen unsur akhaaka daalima aw madluuman qofka waalka ah u kaalmee u gargaar u hiille ama ha ahaado daalim ama ha ahaado madluum mar haddii uu kuu yeerto oo mar haddii lagu gacan haatiyo iska kaalmee oo maaragtay garab istaag taasoo khalad ah oo dhibaato weyn ah marka hiilada indhala-aanta ah oo qofkaanu ma gardaran yahay mase waa laga gardaran yahay aan la fiirinaynin waa calaamad ama waa muuqaal ka mida muuqaalada qabyaaladda waana jiri jira xataa waayii hore jaahiliyada iyo carabtii hore midda labaad waxaa weeye in lagu faanfaano waxaa loo yaqaano nasabka oo qofka asagii oo wax kale aan sheegaynin oo aan sheegaynin diin aan camal saalixa sheegaynin aan xataa akhlaaq kale aan sheegaynin ayuu wuxuu wax ku faanayaa inuu reer hebel yahay keli ah ayaa ah calaamad faan bay noqonaysaa calaamad faan ayaa waxaa noqonaysa reer hebel baan ahay keli ah oo qofku uusan wax kale sheegayn hadda waxay qabteen sheegi maayo camal maarata saalixa ay qabteen ma sheegahayo iimaan hadda ay lahaayeen oo gaara ma sheegahayo diin ay sameeyeen ma uu sheegayo keli ah maadaama reer hebel aan ahay in laga dhigo sabab qofka uu ku faano oo dadka kale maxaanku raahaa lagu duro ama lagu liido saddex waxaa weeye maadaama adigu aad maaragtay si baatil ah isku ammaantay in dad kale si baatil ah loo duro ama wax looga sheego adoo ku durahaya sabab kale maaha waa qole hebel war maxay bi'iyeen ma diin bay halleeyeen ma camal xun bay sameeyeen ma akhlaaq xun bay ku kaceen waa in la fiiriyaa marka qofkii oo wax been ahna isku ammaana dad kalena wax been ah ama baatil ah ku durahaya waa calaamadda qabyaaladda wey afaraad dadka oo laga dhigo galaasis ama dabaqaad waxa loo yaqaano ayadoo laga eegayo maalan yani xagga maxaanku dhahaa sharafta hadda aan sheegayo iska mascuumka ah oo dadka maalan yani qabaa'ilkii la kala fadilo ama maaragtay dadka ayagoo aan loo fiirinin qofkaan akhlaaqdiisa diintiisa qofna kor loo qaado qofna la liido marka dabaqadda weeyaan ummadaha qaarkood dee waa ka jiri jirto dhaqan ahaan bay u jirtaba laakiin soomaalida in maalan la yidhaaho la kala guursan maayo oo kale ama waa ka fiicannahay oo dadkii darajooyin loo sameeyo ayadoo loo cuskan hayo wax aan diin ahayn ama aan gar ahayn ama aan cadaalad ahayn shanaad waxaa weeye waxaa lagu yaqaana qabyaaladda waxaa loo yaqaano aargoosi iyo aano aan dhammaanayn aargoosi iska soconaya iyo aano aan dhammaanaynin oo maalan maxaanku idhaahaa yani qof baa la dilay qofkii dilay xataa la dili mahayee mid asaga ay maaragtay aqraaba yihiin ama walaalkiis ah ayaa la dilahaya ama 10 baa la dilahaya ama 5 baa la dilahaya oo la leeyahay maxaa anana loo taabtay qofka anaga na taabtaa labaan ku dhufanaynaa ama qofkii halna yidhaaha labaan leenahay oo kale marka waxa loo yaqaano sa'riga ama aanada oo aan shariicada loo ilaalinaynin qofkii qof dil in la dilaa waa sax waana qisaas waana diin laakiin kii dili mahayee walaalkiis baan dilahayaa ama aabihiis baan dilahayaa ama dhowr kale aan dilahayaa ayaduna maaragta waa calaamad lagu yaqaano qabyaaladda waxaa kaloo lagu yaqaana qabyaaladda dagaallo macno la'aan ah dagaal macno la'aan ah oo ku bilowda sabab aan sii weynayn buu ku bilaabanayaa nin baa maaragtay neef geel ah buu iga uleeyey neef geelu biyaha u diiday waxa noocaas oo kala faras buu saas yeelay marka waxyaala iska basiid ah ama geel la xiriira ama farda la xiriira iyo wax la mid ah ayaa la iskugu baaba'ahaya waana sida carabtii hore ahaan jirtay marka dagaal ku bilaabanaya sabab iska basiid ah oo la xallin karay buu ku bilaabanayaa waana dheeraanayaa waa la isku baaba'ahayaa sanooyin buu socon carabta qaarkood waxaa laga warin jiray 40 sano dagaal socday oo sababtiisu ahayd 2 faras oo soo kala hormaray oo xoogaa maaragtay dhex mareen
marka xurubaan dhammaanaynin iyo dagaal iska maaragtay iska soconaya asbaab liilitana ka bilaabanaya waxaa ka mid ah qabyaaladu ay keenaysaa ama muuqaaladeeda ka mid ah waxa loo yaqaano kala tagga dadku inay kala tagaan oo la kala sooco la kala guuro oo maaragtay yani anagu reer hebel xataa dameeraheenu isma orgeeyaan baan leeyahay xataa dameeraheenu xataa isma maxaan ku isma orgeeyaan leeyahay ama reer hebel xataa dabka ma kala qaadanno bal oranaya marka umad kala guurta oo meesha lagu kala baxo oo maaragtay muuqaal ahaan iyo macna ahaan la kala guuro ayaa ka mid ah maxaan ku oraa waxyaalaha lagu yaqaan qabyaaladda waxaa ka mid ah qabyaaladda in aabbayaashii iyo awoowayaashii xeerkooda iyo dhaqankooda iyo waxay samayn jireen la iska raaco ayagoo aan la fiirin waxaanu sax miya ama khalad ba inna wajadnaa aabaa'ana calaa umma oo kale weeye aabbayaasheen saasay ahaayeen war maxaa saxa maxaa khalad la fiirin maayo marka qofkii inuu awoowayaashii iyo aabbayaashii iyo dhaqankii hore uu iska dabagalo isagoo aan fiirinaynin dan iyo diin midna waa calaamadda qabyaaladda weeyaan xun oo dhibaato gaarsiinaya oo qofkii ka dhigaya qof aan bulshada la socon karin qof diin iyo adduunba ku baaba'ahay bay ka dhigaysaa maalan qofkii waxay ka dhigaysaa qof la odhan karo barti yaqaan bimacnaa waxa weeye anigu reer hebel baan ahay wixii aan aqaanin keli aan ku dhegahaya ummadaha kale iyo qabaa'ilka kale waxay leeyihiin oo wanaag ah ama laga faa'iidi karo qofkii ka faa'iidaysan maayo halkii shay uu yaqaanay ama halkii shay cidda uu ka bartay buu qofkii dul taagan yahay marka waxa la odhan karo jumuud qofku inuu ku maaragtay ku xargago qofku uu ku dhego wax yarahoo asaga keliya ama gurigiisa laga yaqaanay qofku inuu maaragtay ku adkaysto ummaddii kale iyo qabaa'ilkii kalena uusan ka faa'iidaysan bay ku bixinaysaa qofka waxaa qalbigiisa galaya xasad waxaa galaya xiqdi waxaa galaya nacayb oo qof muslim walaalkiisa uu qaadayo sabab la'aan waana garanaysa dee xasadka iyo xiqdiga iyo dhibaatada ay leeyihiin iyo nacayb qofkii inuu dad walaalihiisa ah oo muslimiin ahoo xurmo iyo xaq ku leh qofkii inuu xaqiro ama ku jeesjeeso baa ka dhalanaysa qofku inuu ahaado qof anaani ah bimacnaa maaragtay anigu aan jiro ciddaydu ha jirto wax kastoo wanaaga annagaa u baahan annagaa qaadanayna marka wixii la kala qaybsan lahaa ama laga kala faa'iidi lahaa ama ummadda lagu baahin lahaa in qofkii wax kasta aniga iyo ciddayda uu taagan yahay baa ka dhalanaysa qofkii inuu ahaado qof mutakabbir ah oo isla weyn oo dadkana xaqirahaya dadka yasahaya xaqa iyo cadaaladana aan ogolayn sida xadiidku ahaa alkibru badaru lxaqi wa gamdu nnaas kibr waxaa weeyaan waa qofka oo xaqa ka santaaga ama iska kibirsiiya wixii cadaaladda ahaa war waxaan gartaada maaha waa lagaa leeyahay qofkaana waa kaa quman yahay sidaanu sax ma aha wuu diidahayaa marka qofka oo waxa xaqa ah iskala weynaada dadkana yasah baa ka dhalanaysa xagga bulshada qabyaaladdu haddee waxaa ma reebaysaba waxay reebaysa ma laha oo hadda maalan maanta soomaaliya oo kale waxaa meesha dhiga waa qabyaalad weeyaan dagaallo dadka burburiya dadka qaxiya bay keenaysaa waxay keenaysaa maamul xumo iyo waxa loo yaqaano qaraabo kiil bay keenaysaa waxay keenaysaa in been abuurad badan iyo dicaayad badan la sameeyo si qofku qabiilkiisa uu ammaano taariikh aan jirin buu samaynayaa war aan jirin buu keenahayaa xataa diinta lafteeda baa loo adeegsanaya diinta lafteeda ayaa laga raadinayaa wax qabiilkayga ammaana iyo wax qabaa'il kale wax ka sheega diinta laga raadinaya marka xataa diintii baa nabadgelaynin si qofku wixiisa beenta uu u meel marsado been iyo dicaayad iyo maxaanku rahaa baa ka dhalanaysa iyo taariikh been la sameeyo waxaa ka dhalanaysa xagga maamul xumada jaanisyo badan oo ummadda looga faa'iideyn lahaa xagga waxbarasho ama xag maaragtay horumar ayaa lumahaya oo qofkii wuxuu leeyahay waxaan maadaama qabiilkayga aysan qaadanaynin yaanba la qaadanin saas weeye ama waa cunayaa ama waa ciidaynaya oo kale weeye haddaan aan wax cunaynin
ciidan ku tuurahaya cid kale oo cunaysa ka faa'iideysanaysa qofkii ma ogolaanayo waxa kale kamid ah xaga ma aragtay maamul xumada maadaama qabiil la isticmaalayo qof aan jaga mudnayn baa la siinaya waxa loo siinaya waa reer hebel jagadan reer hebel baa iska leh وهذا حديث قف كاسو سبضنينا ما لقى هذا ملا وأنا أرين خطر إن قف شغل لو ديبه أصدق أنا مضنين في حديثك إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقيامه وقيامها دعي ومعنى بمعنى حويان قفك شغل وأمانه مسلمين تدين كذا دون كذا يلو دينه يعني مركب قفك مسلمين تلو أمن لها دينها يأدون أهم لو أمن لها haddii qof maala yacni aan la iskaga dhiibo ayadoo la leeyahay ayagaa iska leh waa khatar weeyaan marka ammaanadii iyo maamulkii iyo ammaano ah oo xil ah in qof aan mudnayn loo dhiibo waxaa keenaya ayadoo la leeyahay qabiil hebel baa waxaan iska leh waxaa ka mid a saamaynteeda waxaa loo yaqaano الله سبحانه وتعالى مركب كهله يدك أنصارتها أو المدينة وإلهي دينته الإسلام كنبي صلى الله عليه وسلم كبد بهذه سيدا كهر أهايين ضد كلك تكسن وعدو إسكوءه وأيجا إسكو مغضة أيجا إسكو مغضة أيجا إسدلية أيجا أسباب ين هيا الدين مردقنا حقاس وحق أدون إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار dad marka adduunkiina ka dhacay aakhirana cadaab marka u saaran baa ka soo baxaya qabyaaladda waxa ka soo baxaysa qabyaaladda ama saameynteeda ka mid ah waxa loo yaqaano jinni ku xaqsay ama jinni ku shaqaysay qofkii muslimka ahaa oo ilaahay caabudi lahaa oo lagu talagalay naftiisa maalkiisa inuu ku baxsho wax diinta anfaco ummadda anfaca ayaa qof kale u shaqaynaya qof buu u shaqaynaya qof buu difaacaya qof buu ma aragtay u hilinaya qofkaasi xataa kan warqaba laga yaabaa ma yaqaan baa laga yaabaa qof liito inuu yahay laga yaabaa marka qof aan waxba taraynin oo adduunku anfacaynin aakhira ku anfacaynin baa la iska difaacaya marka jinni ku xaqsay waxa la yiraahdo ama balaayo u shaqee baa ka imaanaysa qabyaalada waxay keenaysaa qabyaaladu in lagu dhaqaaqo acmaasha khatarta ah oo shaydaanku jecel yahay shaydaanku waa cadowgeena acmaal xun in la sameeyo rabaa laakiin acmaash agtiisa way kala fiican tahay shaydaanka sida ku soo aroortay xadiidka shaydaanku ma aragtay junuudiisa ayuu soo diraa maalintii wuxuu leeyahay orda soo shaqeeya markay soo shaqeeyaan waa soo noqonayaan waa war bixinayaan maxaa soo qabateen saasay ahayd saasay ahayd saasay ahayd wuxuu u jecel yahay ninkii yiraaha hebel iyo hebel baan isku diray ilaa isdileen macnaa qof dilay in la soo helo lagu soo guulaysto waa riboorka fiican oo shaydaanku uu ku farxo weeye waa riboorka koobaad oo shaydaanku uu ma aragtay qofkii soo sameeya oo ka mid ciidamadiisa sida ku soo xadiidka madaxu u salaaxaya taaj iyo ma aragtay qalab dahaba ayuu u surahayaa marka ficilka noocaas oo qof dila ah ayaa waxa ka dhalanaysa qabyaalada keenaysa marka ficilka xun oo shaydaan ku farxo oo junuudiisu ay maartay ka warbixiso oo qofkii soo sameeyay la soo dhaweeyo qabyaalada iyo isnacaybka ayaa maartay keenaya waana ficilka shaydaanku ilaa hadda uu ka faa'iideysto sida xadiidku ahaa inna shaytaana qad aysa an ya'budahu al-musalluun fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum shaydaanku waa ka quustay in dadka muslimiinta ah musalliinta inay caabudaan dadka aanu salaad iyo tawxiid ma daynayaan laakiin wuxuu ka helay isku diridda marka barnaamijkaas asaga u socda isku diridda isku baabi'inta dhiigga daadanaya isagoo u socda marka salaadii iyo soonkii cibaadadii aan ka diidnay aan ku fara adeegnay ayuu baabka noo furay dadkii tukanaya wada cibaadaysanaya wada soomaya ayaa isbaabi'inaya marka dhiigga daadanaya oo muslimiintu islaynayaan oo qabyaalada isku leeyanaya shaqadii shaydaanka oo socota barnaamijkiisu iyo socdo weeye waa in la ogaadaa waxaan ku soo khatimayaa xagga cilaajka daawada hadda dul maro wax kasta daaway leeyihiin gaar ahaan islaamkeenu maarta
صار سقطان أمراض اجتماعية أما نوع كسرت هاي داوي ولا هاي dadku qabyaalad bay aqoon jireen waa kala tagsanaayeen way isleen jireen carab baa la ahaa aad u liidata laakiin waa la isku keenay waa la daaweeyay waxa lagu daaweeyay kow dadka oo macluumaadka loo saxo insaanka macluumaadka haga marka macluumaadka loo saxay ay ka mid tahay dadka bani aadamka dhamaantood asal waaxida bay leeyihiin dadku xagga aadam bay ka yimaadeen wax aadam sallallahu alayhi wasallam ka sokeeya ma jiraan waxa nabiyullaahi aadam dhaafana ma jiraan marka midkaas laan dheer oo dhaafay iyo kana laan gaaba ka sokeeya wax ka jira ma jiraan baa la yiri marka macluumaadkaas waxa weeyaan waa macluumaad muhiim ah waa information ah dadka dhamaantood isku asal weey marka dadka haday isku asal yihiin wax keeni kara in asal lagu kala faanamo ay jiraan aniguna aadam baa gala adna aadam baa gasha yani nabi buu ahaa sharaf badan buu ahaa marka wixii sharaf ahna waan wadaagnaa wixii kalena waan wadaagna marka waxa weeyaan asalku waa kaas marka macluumaadkaas baa la saxay waxa kale oo maaragtay islaamku uu sameeyay waxa loo yaqaano al-ukhuwa al-iimaaniyah innamal mu'minuuna ikhwa dadka islaamka iyo diinta lagu walaaleeyay nabi sallallahu alayhi wasallam waxa loo yaqaan mu'akhaat ayuu sameeyay waxa kale oo la sameeyay dadka waxa loo saxay miisaanka maadaama dadku isku asal yihiin oo xagga aabaha iyo xagga hooyada laga siman yahay marka maxaa furan waxa furan in lagu kala dheereeyo taqwada iyo iimaanka iyo amalka saalixa ayaa lagu kala dheereynaya laakiin aabahay baa saas ahaa iyo xaggaas angala iyo adaa laan dheer ah iyo adaa laan gaab ah ma soconaysa leeyahay marka miisaanka lagu kala fadilmayo lagu kala fiicnaanayo baa dadka loo saxay oo ah inna akramakum inda allahi atqaakum midda afraad waxa weeyaan si qofka muslimka ah qabyaalada uga deeqtoonaado waxa loo sameeyay nidaam dawladeed oo ku dhisan cadaalad baa loo sameeyay oo qofku wuxuu u baahan yahay dawladdaas siinaysa adeegii dawladdaas siinaysa qofkii dulmiya dawladda ka qabanaysa wixii ka maqan dawladda u keenaysa marka baahi loo qabo qabyaaladba ma ay jirayso insha Allah ta'ala waxa la caayay oo aad maaragtay loo cambaareeyay tacasubka qabaliga ah ama qabyaaladda ayaa la cambaareeyay waxa la cambaareeyay in aabayaashii hore la iskaga faanfaano waxa la cambaareeyay habar wacasho waryaar reer hebelahay waa la cambaareeyay waa la diiday waxa la cambaareeyay in qofku uu xanaaqo ama qofku u ficiloodo aan qabiilka qofku inuu maaragtay arrin ku salaysan qabyaalad lagu dagaalamo la iskugu yimaado la isku laayo ama lagu dhinto waxa kale oo islaamku uu sameeyay saan soo sheegaynay qofku inuu maarag dadka dhashay uu dad leeyahay oo dad isku xiran yihiin waa shay caadi ah weeyaan oo ijtimaaciga keenaya marka awoodda ijtimaaciga dadkan isku xiran oo aan halka oday sheeganaya oo iska warqabo is yaqaana is aqoontaas iyo isku xirnaantaas islaamku ma kala dirin oo dadka kala taga ma oranin waxa weeye in maaragtay looga faa'iideysto dhanka wanaaga baa loo isticmaalo marka waa awood wax jira weeye oo haddii si sax loo isticmaalo laga faa'iideysan karo weeyaan marka in dadka la yiraaho maaragtay dadku qabiil ma ahaan karaan arrinkaas wax soconaya ma dadku qabiil waa yihiin dadku abtiris bay yaqaanaan qofku maxaan ku qaraabo leeyahay meel buu ka dhashay waa la is yaqaanaa laakiin awooddaas in si sax loo isticmaalo la rabo oo si khaldan aan loo isticmaalin marka islaamku awoodii jirto isku xirnaanta ahayd oo dadka is yaqaano iska warqaba ahayd si saxan iyo wada saxan baa loo isticmaalay taasna waa muhiim weeyaan waxaan ku soo khatimayaa mas'aladan waa in si gaar ah looga baaraa ama aad culayska loo saaraa waxa loo yaqaano al-ulum al-ijtimaaciya bulshada mas'alada qabyaaladu cilmi bulshadeedka bay cilaaqo la leedahay marka cilmiga dadka yaqaana inay maartay uga faa'iideeyaan ummadda uga faa'iideeyaan oo mas'aladan bulsho ahaan loo xalliyo oo cilmi ahaan loo baaro ayaa loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku khayrka isku kaalmaysta allah naga dhigo wabillahi tawfiiq salaam